إخوتي الأعزاء، إلى وحن قدرنا سبحانه وتعالى مجلس كان المجلس مباركة إلهي أكتي سوحنا ترين إنه قبل قلمانتين حنسكو حسوسنا إن إلهي سبحانه وتعالى أوامرتيسا إيا وحيابها ونقرب وحو إلهي القرآن كيسا كويري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بن آدمك إيا جنك إنا يعبدان بانو أبوري عبادة إلهي بانو أبوري ويري وحكا لو ما أبورا إلا ليعبدون وحسروا. marka adduunka wuxuu isugu jiraa dad mukallafiin ah, insiga iyo jinniga ilaahay cibaadadiisu u abuuray, inta kalena makhluuqaadka ayagaa loo sakhiray. wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu. cirka ilaahay noo sakhiray, dhulkaa noo sakhiray, naloo layliyey, badahaa naloo layliyey, biyahaa naloo layliyey, daruuraha, hawada, wax walba uunka kale oo dhan ilaahay annagu noo sakhiro noo layliyey, annagana cibaadadiisu noo abuuray subxaanahu wa tacaala. huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican. dhulka waxa ku sugan oo dhan ilaah adinkuu idiin abuuray, adinkana cibaada laydiin abuuray. wax walba, hantida iyo dadka iyo ilaah subxaanahu wa tacaala hadduu maal iyo mool iyo wax walba ku siiyo, ayaga annagaana loo abuuray in cibaadadeeda u kaalmaysanno. saa markaan fahanno waxaan garanaynaa almaqsuud alacdam. adduunyadan waxay tahay waa wasiilo loogu talagalay cibaadada ilaahna u adeegsanno. ilaah wuxuu ku sii dara aayadda maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun. dadka insiga iyo jinniga aan u abuuray cibaadada irsaaqad kama rabo, inay aniga ibiilaan oo idheefiyaan kama rabo, qud inay isiyaanna kama rabo. ina allaha huwa arasaaqu du lquwati lmatiin. ilaah asagaa wax walba irsaaqa, asagaa wax walba biilaya, asagaa irsaaqada ballan qaaday, laakiin wuxuu naga rabaa cibaadadu naga rabaa. marka macnaheedu waxaa waaye war cibaada la idiin abuuray inaad irsaaqad adinku isbiishaan ama dad kala biishaan ama ilaahay nafci la idinma abuuran wax ku tartaan ma jirto, mana ku tarkarta ilaah subxaanahu wa tacaala, bal adinka irsaaqadin ilaahay kafaalo qaaday. si aysan macnaha irsaaqada aan raadinayno aysan ugu xadgudbin oo aysan cibaadadii nooga mashquulinin. irsaaqadu marka waa badan tahay cuntada keliya maaha, hawada waa irsaaqadu xag ilaahay ka imaataa. laakiin hawada yay walwal ku haysaa oo ka walwalaya berri wuxuu ku neefsada ama waaya, yaa ka walwalaya oo dhahaya amaa hawada lagaa dhammaystaa, subaxii magaalada ugu soo hormaraya, dadka ugu soo horkacaya, meel walba taagan, hawada yaan lagaa dhammaysanin, waa inaa hawo heshaa. maya, qof walba wuxuu ku qanacsan yahay inta nafta ku jirto ilaah intuu ugu talagalay hawadeeda waa helaya. cid hawadiisa ka qaadanaysa ma jirto dadku hadday isu yimaadaan. tabtaasoo kale waa irsaaqadan. ilaah subxaanahu wa tacaala waxaad cuni lahayd, waxaad cabbi lahayd, cid kale oo kaa cunayso kaa cabbaysa lama aha. waxba dadkaan xitaa meelay ku ordahayaan ha kula farabaxsanin oo yaan laysku qabsanin adduunyo. maxaa yeelay hawo haddii laysku qabsado ka waran maanta waad la yaabi lahayd oo meeshaan hawada lagu dirirayo war waa idin wada daaqdaa. qof walbana tiisii unbuu dhaafsani, tug kalena ma helayo, tiisiina ma dabamarayso. irsaaqadana waa sidaas. ilaah subxaanahu wa tacaala marka in badan buu isku xiriiriyaa war cibaada la idinka rabaa, irsaaqad adinka la idinma dirin, waad helaysaan.
sida shimbiraha ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqadii irsaaqada kala saarata meesha tagtay irsaaqadaada waa ku taala meesha ka tagto meel kala irsaaqadaada waa ugu tagaysaa gacmaha isa saaran macnaheedu ma aha laakiin walwaliyaysan kugu qabanin waxaad cuni lahayd hawadaba sanka iskuma qabsanaysa waad kala qaadaysaa waad ku raadinaysaa hawadaadii laakiin walwal kuma hayso hawadii sidaas kale waa irsaaqadana suuratu Taha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha ahlkaaga iyo dadkaaga waxaad fartaa salaada waa cibaadada wixii ugu weynaa bacda tawxiid marka islaamnimada qofka uu soo galo cibaado ilaah ugu dhawaado waxa ugu weyn waa salaada ilaah iyadu si gooni ah noo faray oo wa'mur ahlaka bis-salati dadkaaga waxaad fartaa salaada wastabir 'alayha adigana ku dulqaado oo ku sabir oo ku dhag salaadii yeysan ka halaabin haday salaadu ka halowdo inta kale oo acmaasha waa ka wada halaabay wax la aqbalayo dambe male haday salaada hagaagto acmaasha inta kale oo dhanba wada hagaagaysa wastabir 'alayha maxaa ku xiga la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka سورة الذاريات هذا واتان سمر إني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إله أيضا نحوله لا نسألك رزقا هذه قبيل لقمو يديني ذاتك محاول ساقل أسيم ويدي لقمو يديني نحن نرزقك أنك قبيلين وحكمتها عبادة إنه قفك يقين صدو نحن نرزقك نحن نرزقك annaga ku biilayna makhluuq aan waxba haysanin oo asagu ba wax isu tari karin haduu maanta in madaxweyne muxuu yahay isaga wax xabsi adduun ku jira dadka caadiga ah dhaama meel walba ma mari karo meel walba ma fariisan karo xabsiga laba nooc xabsiga mid ka soo madaxa ku jira qofkaas haduu ku dhaho maanta biilkaaga ana qaba meeshan ila soo xiriir أنا كفالة قاضي واحد بهانته هذا الواقصين يا قفك سبحان الله يا وإنه سلوا أدي ما أنت فخر إسديسين ما دام إنك وجسر وضنك وحولها بدنا وكوب الله قاضي بالكاغا لكن ومخلوق أصلح تحول ما أوله وحبا ما هيس وحبا روح هاي حتى أسجى ملك إنه قادوا لنتال غيابه قصة ملك آخرين nin aad u hanti badna oo xitaa dawladaha la noolaan deyn siin jiray hantidiisa farabadnideeda ayaa maalinkii dambe hantida khasnad buu ku xirayay meel aan la jabsan karin cid gali karta aysan jirin asagoo meeshii ku dhex jira ayaa albaabkiisa khalada ugu xirmay albaabkii ku xirmay wa albaab hada ugu talagalay inaan cidina furin asagii meeshii ku dhex jira cid kama warqabto albaabkii waa ku xirmay wuu qayliya lama maqlayo dadkiisi waxay moodeen inuu safar ku maqan yahay markaas la iska daayay suu qaylina meeshana waxa ku jira hanti aad u fara badan dhowr bari markuu xoogaa ku jiray oo uu meel ka baxa waayay oo inuu dhimanayo arkay iyo waxay dhan fartiisu dhiig ka keenay darbigii buu ku qoray qofkii adduunka ugu xoolo badnaa oo gaajiyo oo dhimanay meesha maxaa ugu buux hantidiisii ku jirtay dawladuhu daysinay laakiin gaajo ugu dhimanay qofkii ilaahay ugu talagalay inuu gaajo u dhinto uu dhiman walow adduunka ugu lacag badnaada hadduu ilaah subhanahu wa ta'ala marka ballanqaadkiisu ma yatakhallaf gacan wax ku jira iyo wax bina aadam haysto ma aha irsaaqadu mida ilaahay way subhanahu wa ta'ala ilaah marka wuxuu leeyahay nahnu narzuquka annaga ku biilayna hadi hawl baa lagu diray cibaadada ku toosnow dadkaagana amar annaga ku biilayna bil lagu weydiinayo cibaada bana laga haba marka amarka ugu horeeya ee quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala marka musxafka akhrinayna qofku markuu suuratul faatiha ka bilaabo suuratul baqara bilaabo amarka ugu horeeya oo quraanka ilaah uu siinayo qofka quraanka akhrinaya waa cibaadada waa ya ayuhan naasu
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأول أمر واحد وقف فاتحة سؤال بقرة صوب الله أمرك وهو الرئي وإله بحيي اعبدوا ربكم يا أيها الناس إنسي يجنب ويسوق لنا بدليل قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس كواواي من الجنة والناس وعاد تفاصيل مركا ورددوا ثقلينوا اعبدوا ربكم ربكين عابدا الذي خلقكم والذين من قبلكم الله إذن أبوري وأذنكم جرين وحجر إذن كاللغاي انت إذن كهري سنة أبوري كلغي عابدا حداد عبادة التي مادام وحال إسكر دوريسان عرض إلهي عذاب بيس لعلكم تتقون الله عابد إيسان الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الله أقول كيدين قبلي سمد إذن كدرولي عركب بيه إذن كالكالي نبات إذن صاري أطعنتان أذنك يحولهن الله أسمرك هرنا إذن أبوري إرساقنا إنسي إرساقنا الله سعوتا اعبدوا ربكم وحادبي الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات مع كعي رزقا لكم رزق لنا وكاس إله رب الله قاضي اللي إرساقنا إنسي عركب بيه إذن كالكاني إذن صبحي المرء أذنك يحوليه النبع أنتم كلوا ورعوا أنعامكم الله كبق إله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لها أندادا نهي وقوة رأيا وقرآن كيمد وحا لإسكر رأينا فلا تجعلوا لله أندادا إله أويلنا وحلمد إله أويلنا سبحانه وتعالى سلمد النقنية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أذنكم إلهي إنو سنلهين عد لمد نقن كرتا وحلمدها ويلنا يعني عبادته لها عد كلا هدات سيسان معناها الوحاوية إله بعد وحاد للسنتين وحان للسنين وحلسن ما بالجيران أهل النار كمركا النار تكون جيران أو أركان ضدك إله لسنين ضدك كبقين ضدك وينيين ضدك حق إلهي سيان بيوحيده دونان تالله إن كنا لفي ضلال مبين ولا بعد عقبا كسبنين إذ وقته نسويكم برب العالمين أن الله عالم قدن أبوري وعبادة كلي لها مكان إذن لسنين أو حق إلهي ولها أن إذن سينين ولا مالك وان ننسانين مانتان إسوغاني فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الله يا حمر نعلي أدونكي ومركز أن كمل نقنو ضدك إله كلي الرميي حق إلهي عدك الأملسين الله يا مرنا عليا لكن وعلى أو حبت رينما إله سبحانه وتعالى مركا عبادة ديسا أيون نفري محيط عبادة وانو إيمان دونا لكن حامل بهانها يوكالي صلاة كستون تكنين لنا عبادة إنا نحن الله وعابده نابعنا لفري ركعت والله سورة الفاتحة مالكي تضبيط تمام ضربة أبويا وحي واجب كتاين الآخر قفك مقيمك كتبت إله أسود جي أولا وفرما إله أصادر أدومي سو أسود ديبي رسوش أسود ديبي أيضا تصيا وضد الجنة كؤاد لهاي كتبت إله أسود جي كل جود وحي كجري مهمة دودية أنت مهم سنة قرآن كي كجري قرآن كان إله ونجا الناس ديبي فرينتان إله وناك نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه والقرآن كان وحاكم أرسل كتبتي هراء لم وحي كجري أي أسأل كجري مقصودك وحينها نادنا علماء سورة الفاتحة وحا كل حجرة
قرآن كأردن مهمة نحر كقرآن كأردن سورة الفاتحة كجنا سورة الفاتحة نحر كأردن